Aabbihii arxanka darnaa, shanta xabo madaxa kaga dhuftay gabadhiisa oo 7 cisho jirtay, haddana diiday in la aaso. Maxaa yeelay wuxuu jeclaa inuu arko wiil uu aabbe u yahay, balse xaaskiisu waxay ku curatay gabar loo bixiyey Janna. Saygeedu gabadha Alle ku irsaaqay kuma farxina waa ka carooday, waana kan gacantiisa ku khaarijiyey. Dilkan argagaxa leh ayaa toddobaadkii hore ka dhacay gobolka Punjab ee dalka Bakistaan. Warbaahinta caalamka ayaa lafaguraysa nacaybka ninkani u qabo gabdhaha. Qoysaska Hindida, Bakistaaniyiinta iyo Bangalaadheeshka ayaa ka siman nacaybka loo qabo gabdhaha, waana dhaqan soo jireena oo salka ku haya in gabadha qoyskoodu ay bixiyaan gabaatiga marka laga guursanayo, halka wiilashu ay hantida xaaska iyo tan waalidkaba ay dhaxlayaan. Lamaane jacayl fac weyni faraqa isugu xiray, Shabhees Khan iyo Mashaal Faduma, ayaa 2 sano ka hor isku guursaday degmada Manwel ee gobolka Punjab ee waddanka Bakistaan. Ka sukow jacaylka qotada dheer ee dhexdooda yaal, waxay ku taamayeen inay dhalaan ubad wiilal iyo gabdhaba leh. Mashaal Faduma riyadeeda ugu weyn waxay ahayd in Alle carruur uu ku manaysto, balse saygeedu ma doonayn in qoyskiisa ay gabdha ka mid noqdaan, keliya wuxuu jeclaa wiilal badan oo geesiyaal ah. Dowladaha Bakistaan iyo Hindiya ayaa mamnuucay baaritaanka dumarka uurka leh, si aan loo ogaan jinsiga ilmaha caloosha ku jira lab iyo dhadig ku yahay, kadib kolkii ay kordheen haweenka iska soo rida gabdhaha calooshooda ku jira, si aysan mustaqbalka saamayn dhaqaale ugu yeelan qoyskooda. Waxaa la weriyey in Shahbees Khan oo safar ugu maqnaa magaalada Khushba, loogu bishaareeyey in xaaskiisu ay umushay gabar qurux badan. Bilkhayr iyo Allah mahadle ma orane waa colaystay gabadha qoyskiisa ku soo biirtay, sharaf darro u soo hoyatay ayay la noqotay. Isagoo caraysan buu boorsooyinkiisa ka soo xirxirtay Khushba, wuxuuna tegey magaaladoodii Minwali. Shahbees Khan waxa uu diyaariyey sidii uu qudha uga jari lahaa gabadhiisa. 7 cisho kadib ayuu xaaskiisa xoog uga qaatay gabadhiisii, wuxuuna la soo baxay bastoolad isagoo madaxa uga dhuftay 5 xabadood. Cusbitaalka ayaa loo qaaday balse nolol lama aysan gaarin. Bakistaaniyiinta ayaa ka carooday falkan arxan darrada ah ee uu ku kacay aabbaha reer Punjab, sida uu daabacay wargeyska Daily Mail. Booliiska dalka Bakistaan ayaa gacanta ku soo dhigay dilaaga Shahbees Khan, inkastoo markii hore uu baxsaday. Waxa uu qirtay inuu cara awgeed qudha uga jaray gabadhiisa. Saahira Khan, afhayeen u hadlay booliiska degmada Manwali ee gobolka Punjab, ayaa tiri, booliiska oo gacan ka helaya tiknoolajiyadda casriga ah ayaa xalay ka soo qabtay degmada Bahakar eedeysane Shahbees Khan. Booliisku wax dulqaad ah uma hayo dembiyada foosha xun. Shahbees Khan, oo booliiska la hadlay, ayaa yidhi, aad ayaan u nabcahay in xaaskaygu ay gabar ii dhasho. Horay ayaan uga dardaarmay arrintan oo kale, laakiin iyadu ma kala jecla wiilasha iyo gabdhaha. Dhaqankeena fog ayaa ogol inaysan isku xaquuq ahayn wiilasha iyo gabdhuhu kalena fiican yihiin. Wuxuu dhigayaa in la dili karo gabdhaha haddii aan lagu qanacsanayn, sababtoo ah waxay culays ku yihiin qoysaska saboolka ah sida annagoo kale. Shahbees Khan waxa uu hadalkiisa sii raaciyey, xaqiiqdii haddii xaaskaygu ay wiil ii dhali lahayd, sidani ma aysan dhacdeen. Maxaa yeelay weligay ayaan ku riyoon jiray inaan noqdo aabbe wiilal badan dhalay. Waxa aan rajaynayaa in garsoorka gobolku ay difaaci doonaan dhaqanka iyo dhaxalka aabbayaasheen ay nooga tageen. Tacdiyada gabdhaha iyo sinaan la'aanta jinsiga ayaa ku xoog badan wadamada deriska ah ee Hindiya iyo Bakistaan. Waalidiinta badankoodu waxa ay ku taamayaan inay wiilal u dhashaan halkii ay gabdha u dhalan lahaayeen. 32 milyan oo gabdhood oo waalidkooda ay u naceen sababo dhaqaale ayaa la weriyaa inay ku nool yihiin labada dal ee deriska ah waa Hindiya iyo Bakistaan, kuwaasoo mar hore hal dal wada ahaan jiray.